Ma ogtahay in qof walba naftiisa u noqon karo macallin? Inaad wax barato kaliya adigoo aan fasal joogin ama macallinku ag fadhin waa mid ka mid ah awoodaha ugu waaweyn ee nolosha lagu guuleysto. Muuqaalkan waxaa kugu barayaa habka saxda ah ee aad kaliya wax isku bari karto wax walba oo aad doonayso si aad noloshaada u horumariso. Haddii aad rabto inaad barato xirfad cusub, akhris fiican samayso ama naftaada u diyaariso mustaqbal ifaya, ila soco ilaa dhamaadka saaxiib. Qodobka ugu dambeeyana waa kan ugu muhiimsan. Qodobkeena koowaad, deji hadaf cad. Waxbarashadu waxay bilaabataa markaad ogaato waxa aad rabto. Isweydii, waxaan doonayaa inaan barto. Hadafkaaga u qaybi yoolal yaryar, sida inaad maalin kasta barato hal cutub iyo hal cashar ama hal xirfad oo yar. Qodobkeena labaad, samee jadwal waxbarasho. Kaliya waxbarashadu waxay u baahan tahay nidaam. Inaad leedahay saacado go'an maalin kasta aad wax barato, xitaa haddii ay tahay 30 daqiiqo. Xasuusnuu joogtayntu waa furaha wax isbaridda. Waxaan kugula talin lahaa inaad soo daawato muuqaalkan kii ka horeeyay ee aan kaga hadlayay joogtaynta. Qodobkeena saddexaad, ka faa'iidayso kheyraadka casriga ah ee internetka. Waxaa jira buugaag, YouTube, koorsooyin online ah iyo applications waxbarasho oo bilaash ah. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad barato xirfadda graphic design, markaas waxaad isticmaali kartaa Canva ama Photoshop tutorials oo YouTube yaal ayaad daawan kartaa kana baran kartaa. Qodobkeena afraad, qor waxaad barato. Qorista waxaad baranayso waxay maskaxdaada ka dhigtaa mid aadan ilaawin xogta si fiican. Adigoo ilaawin waxaad qortay, samayso buug yar ama notebook wax ku qorato. Qodobkeena shanaad, ku celceli waxaad barato. Haddii aad barato af cusub, ku hadal mar walba. Haddii aad barato coding, qor codekaas. Haddii aad barato quraan, ku celceli akhriskiisa. Qodobkeena lixaad, isku day inaad naftaada tijaabiso. Samee imtixaan yar ama naftaada su'aalo weydii. Tan waxay kuu muujinaysaa waxaad si fiican u fahantay iyo waxaad u baahan tahay inaad dib ugu noqoto. Qodobka toddobaad waa kan ugu muhiimsan. Raadi bulsho kula mid ah oo kaligood wax isbaraya. Inkastoo aad kaliya wax baranayso, isku xir haddana dad kale oo aad wax isla baranaysaan. Waxaad ku biiri kartaa groups Facebook ah, WhatsApp ama goobaha internetka ee dadka isku mawduuca ah iskugu yimaadaan si ay iskula wadaagaan fikrado, su'aalo iyo talooyinba. Haddaba saaxiibayaal, sida aad aragteen, waxbarashadu uma baahna fasal weyn iyo macallin had iyo jeer ku hareer socda. Kaliya ayaad noqon kartaa macallin iyo arday isku mar, haddii aad leedahay niyad, qorshe iyo joogtayn. Haddii aad maanta bilowdo, sanad kadib waxaad noqon kartaa qof gebi ahaanba ka duwan qofka aad hadda tahay. Marka aan ku weydiiyo maxaad adiga naftaada bari doontaa maanta, jawaabtaada igu soo qor qaybta commentiga. Hana ilaawi inaad like, subscribe iyo share igu taageerto si aan u sii wado muuqaalo kaa caawinaya horumarkaaga.